السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barashanii toban ka mid ah faa'iidooyinka qur'aanka kariimka ah uu leeyahay akhrintiisa. Qur'aanku waxa uu kordhiyaa kalsoonida uu addoonku ku qabo Allihii abuuray subxaanahu wa tacaala. Qur'aanka waxaa laga helaa raaxo nafsi ahaan, deganaansho iyo xasilooni. Waxa uu xoojiyaa xiriirka u dhexeeya addoonka iyo Allihii abuuray subxaanahu wa tacaala. Qur'aanku wuxuu suuliyaa ama kaxeeyaa walwalka, walaaca, ciriiriga nafsiga. Qur'aanku wuxuu hagaajiyaa xiriirka iyo la macaamilka ka dhexeeya qofka iyo dadka kale ay nolol wadaagga yihiin. Qur'aanku wuxuu door weyn ka qaataa edbinta iyo toosinta nafta, guud ahaan iyo dibad ahaanba. Qur'aanku wuxuu kordhiyaa kalsoonida uu qofku ku qabo naftiisa iyo rumaynta qadarta Alle. Qur'aanku waxa uu qofku ka ilaaliyaa waswaaska iyo fariimaha shaydaanka qalbigiisa ugu soo diro qofka. Qur'aanka waxaa laga helaa taariikh hore oo laga faa'iidaysan karo, lagana baran karo khibrad nololeed. Qur'aanka qofku waxa uu siiyaa dhiirigelin iyo go'aan qaadasho wanaagsan ee nolosheena saameyn ku leh. Qur'aanka qofku wuxuu ka dhigaa mid faraxsan oo bashaash ah. Qur'aanku wuxuu kobciyaa garaadka qofka, waxa uuna ka dhigaa qof xigmad badan. Ugu dambayn, qur'aanku waa daawo dabiici ah, wuxuuna ka hortagaa xanuunada ku dhaca maskaxda. Waxay dhowaan ogaadeen saynisyahanadu in ay akhrinta qur'aanku tahay sababta ugu badan ee ay muslimiintu u yihiin kuwo deggan oo maskax furan.